filinkii Jawan ahaa ayaa ka dhigay wacdaro waaweyn gudaha India iyo sidoo kale caalamka oo dhan. Filinkii Jawan maalinkii opening day-ga loo yaqaanay waxa uu soo xareeyay qiimo kor dhaaf ee 75 karoor, taasoo ay ka macno tahay inuu noqday filinkii sanadka ugu khatarsanaa ama ugu qiimaha badnaa marka loo eego day opening-ka. طبعا hore waxa uu hayay kaalintaas filimka lambaga baxay basaan oo ahaa 53 karoor Jawan Shahrukhan hogaanka ka ahaa, balse filimkani kaliya kuma ekaan sanadka ee waxa uu noqday filimka guud ahaan luqadda India lagu isku baxaa filimkii ugu qiimaha badnaa day opening-ka. marka laga reebo filimada Tamilka iyo Teluguga, guud ahaan marka isku daro Tamil iyo Telugu iyo Bollywoodba waxa noqonaya kaalinta koowaad sideen wada ogsoonnahay RRR iyo sidoo kale kaalinta labaad waxa noqonaya Bahubali 2. طبعا markii sida loo eego Jawan waxa noqonaya filimka afraad, laakiin marka la eego Indian language-ka waxa uu noqonayaa filimka koowaad ee ugu qiimaha badnaa abid marka loo eego day opening-ka. طبعا Shahrukhan ayaa sanadkan soo saaray filimkiisa labaad oo ah filim blockbuster ah. طبعا sidoo kale waxa laga shaqeeyay filimkani inuu noqdo all time blockbuster sidoo kalena qiimihiisu kor u dhaafo 1 karoor maadaama xilligan aynu joogno oo maraya qiimihiisu 197.5 karoor, taasoo ka dhigan inuu filimkani madaxa la sii geli rabo qiimaha doolarka marka loo eego 25 milyan oo doolarka Mareykanka ah. waray qiimaha caadi ahaan way kaliyaad baan salaamay dhalinyaro sidoo kale aad YouTube-ka subscribe saartaan maadaama asanidin